بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد كسمها رئيس الوزراء أنا رئيس الوزراء كحجينك وزير الدولة فيسك رئيس الوزراء وزير الدولة مالية دورها جودة كسمها أنت دور جودة قرنك قسم حجاج جوكتة وزارة إيور ومان قسم ياشا وحياة كل دوان شقالها وسكي ما عندنا عطوا صباح دونا صار الكمال لما أنت وايد السلام يا تمركوا سوريين تا شقاد الله تلم لا إجماع ذي مانتا حلا لا يدك عواسترو شقاد بدن واي عيب بدن خنتي هذا الذين ديبي أو الذين يجر معمولا أو الذين يردك السعرورية أمانة الذين بذي أمانة داس مالنت يوم القيامة والدن كل حساب تميا الدنيا والدن كل حساب تميا أمانة دا مركب إن أتسكيل على لسان وسيدي لو قلت لك على هذا الجودتان أيام أرتدي كل دردار ميا وأمد رم بكرة حيسا وحوله أمد كرة حيا وحوله dadka aad aragteen abaartu baabi'inayso iyo dadka aad aragteen gaajada u dhimanaya ka dhaxeeyo waxa ka codsanayna inaad hardida ummadda gacanta amaanada loogu talagalay sida uu sharcigu u tilmaamay inaad marisaan sharaf baad ku helaysaan horumar baad ku helaysaan adduun iyo aakhiraba haddayna taa dhicin waxaa imaanaya markaa in adduunkana lagugula xisaabtamo oo sharciga lagu horgeeyo meel meesha anaho ilaahay xaalkeeda og yahayna oo masiirkaagu noqdo aakhirana wixii aad ku mudanaysid ayadana ay la noqoto waxaan leeyahay waxaad arkayseen oo shuruuc iyo nidaam iyo habkii loogu talagalay wax walba waddankan sharcigiisu waa qoran yahay haddaad u malayseen sharci la'aan inay hayso shuruucdiisu waa complete especially markay timaado dhinaca shuruucda maaliyadda waxyaabaha ugu yar oo kaliya in la saxa u baahan waxa waaye taariifka iyo oo ku qiimaysan qiimayooga shuruucdii hore iyo nidaamkooda inta kale laakiin system dhammaystiran oo maaliyadeed oo waliba caalamka oo dhan marka loo fiiriyo mustawaha ugu sareeya ayaan leenahay wuxuu naga rabaa oo kaliya inaan dhaqan gelino shuruucdaas waxaan filayaa agaasimihiina waa joogaa hanti dhowrihii waa joogaa xogayihii joogtada iyo mas-uuliyiintii qarankana way joogtaa wasaaradda filayaa in shuruucdaas si fiican oo intaan hadda ka faahfaahsan orientationka lidinkaga dhigo oo lidin baro oo si fiican lidinku celceliyo markaa wixii ka dambeeya waajibaad baa idin fuulaya waajibaadkaas marka waa inuu sida uu yahay sharciga loo gutaa haddii waajibaadkaa la gudan waayana faldambiyeed baa ka dhalanaya impunity-ga ama in aan qofka lala xisaabtamin waqti badan bay soo jirtay laakiin waxaan u malaynayaa sloganka ama halhayska xukuumaddani ay leedahay waxa weeye isla xisaabtanku marka waxaa ka dhalanaya markii la isla xisaabtamo faldambiyeed baa ka soo baxaya iyo abaalmarin qofna in lagu abaalmariyo wixii wanaagsanaa uu sameeyey qofna in lagu abaalmariyo wixii xumaa uu sameeyaa ka dhalanaysa waxaan ka codsanayaa sharcigu sida uu qabo inaad u dhaqantaan haddii aanu sharcigu sida uu qabaa u dhaqmi weysaanna sharcigu siduu qabaa lidinku qaadaya hanti dhowraha waa fadhiya hoggaanka ilaalinta canshuuraha iima muuqdaan ciidanka booliiska labadaa hay-adood waxay u xil saaran yihiin ilaalinta hantida qaranka iyo canshuuraha waxaan idin faraynaa sida sharcigu uu yahay in aad ula dhaqantaan shaqaalaha idinkoon ku xadgudbaynin xuquuqdoodana ku xadgudbayn waajibaadkoodana ku xadgudbaynin sida sharcigu yahay inaad ula dhaqantaan waajibaadka idinkala gudboonna aad ka geysataan annagu ciddii ay noo keenaan qofkii uu noo keenaan dadkaas yaanaan isugu imaanin hadhow
saacada wasiir ciddiina loo keeno iyadoo faldambiyeed hanti dhowrku ku soo helay waaxda ilaalinta canshuuruhu ku soo heshay booliska u xilsaaran howlahaas oo furdooyinka jooga ay ku soo heleen markaas shaqaalihiinnina ma aha madaxdiinnina ma aha dad falkaa geystay oo lagu qaadayo waxyaabaha caqabaadka ah oo jira runtii in u baahan in wasaaraddu ay saxday ka mid tahay lacagta gacanta lagu qabanayo eraboorkan ku arkay dekedda somehow bangi baa ku dhex yaalay ugu dambaysay laakiin eraboorka meelaha mismanagementiga ugu weyn uu ka imaanaya waxa weeye lacagta dakhliga oo canshuurta oo inta la qabto gacanta lagu qaadayo oo qof shakhsi gacanta ku qaadayo arrintaa in wax laga bedelo waayo oo ay noqoto document to document forger to forger qoraal to qoraal check to check inay noqoto waxbaa lagu ilaalin karaa nidaamkaas aad iyo aad ay muhiim u tahay sida uu ka dhawaajiyay hanti dhowrku canshuur dhaaf xambaaris ku samaynay 9 bilood dan ra'iisul wasaare 9 bilood oo sanadkii hore ah canshuur dhaafka la bixiyay waxay ahayd 8.9 million qiyaastii waa 1 million bil kasta oo wasaaraddu ay bixisay markii la baaray canshuur dhaafkii waajibka ahaa 8.9 kaas canshuur dhaafkii waajibka ahaa 2 million ma dhama kii saxda ah guddi baan u xilsaarnay waa la baaray waa la ogaaday canshuur dhaafka soo baxay 9 bilood oo sanadkii hore ka mid ah intaas kaliya canshuur dhaaf la sameeyay dakhliga inta leeg inteeba wadanka ka cover gareyn kara oo garan kartaan arrinta canshuur dhaafkana in dib loogu noqdo oo runtii aad iyo aad looga fiirsado muhiim waaye qofka canshuur dhaafka loo sameeyay iyo hay'adda canshuurta loo sameeyay sharciga tilmaamay in sharciga lagu dhaqmana aad bay muhiim u tahay qaabka uu sharcigu ku tilmaamayna loogu dhaqmo waa la kulanay runtii khaladaad noocaas ah sharci degsan oo ilaa baarlaman maray in uu mas'uul kaligiis u bedelo sidoo hanti dhowrku sheegay sharci waxa lagu bedeli karaa sharci kale sharci waxa lagu bedeli karaa sharci kale walaa wasiirada hadday ansixiyaan oo baarlamanku ansixiyo waxaa lagu bedeli karaa oo keliya mahma kaana duruufta ay aad iyo aad u xataa ay laga maarmaan uga dhigaysa xataa in waxa la bedelo laga maarmaan inay tahay laga yaabo laakiin processka sharciga in loo maro baa lagu bedeli karaa haddii aan kaa loo marin ayadoo qaranka faa'iido u tahay ayadoo ummadda faa'iido ay u tahay ayaa faldambiyadu noqonaya marka sharci waxa bedeli kara sharci nidaamkii qaanuuniga ahaa maray aan codsanaynaa waxyaabaha aan maqlaynay oo runtii khaladaadka ahaa oo jiray in la saxo wasiirkii waa joogaa ra'iisul wasaarihina waa fadhiyaa aad iyo aad ayaan waxaan u codsanaynaa siduu u sheegay wasaaradaha rabaa fariintaana inaan ku daro dakhli qabtaa jira mudane wasiir wasaaradaha dakhliga qabta hay-ado badan oo dakhli soo gala jira sharcigu wuxuu leeyahay dakhligaasi waa inuu ku dhacaa khasnadda dhexe ee dawladda haddii la rabo hadhow khasnadda dawlad dib ayaga ha loogu celiyo wax xukuumadda ogta wasaaradda maaliyadda ogtahay ha noqoto waa sharci darro in hay-aduhu ay dakhli ay qabteen ay maamushaan ayagu baahi kasta oo haysa xataa mushahar xaqa ha ku bixinayaan sharci darro isu rogayaan hay-adaha dakhliga qabta wax dakhli ah haba yaraatee qabta waana u malaynayaa 80% hay-aduhu inay dakhli qabtaan haba kala bataan xataa maxkamadda dakhli qabata wasaaradda ganacsiga qabata wasaaradda arrimaha dibadda qabata wasaaradda warshadaha qabata wasaaradda xanaanada xoolaha qabata wasaaradda beeraha qabata hay-ad xataa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada aan ogahay inay qabato wasaarado badan oo wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga qabanaysa wasaaradaha badankoodu dakhliga qabtaan dakhligaasi waa inuu maraa sida sharcigu uu yahay oo khasnadda dawladda uu ku dhacaa
kadib haddii qoondo loo samaynayo iyo haddii baahidooda lagu daboolayo iyo nidaam dawli ay martaa laakiin sida ay hadda ku baxdo waa si sharci darro ah sidaa darteed wasaaradda maaliyadda iyo hanti dhowrahaba waxaan u sheegaynaa in ay wareegto ka soo saaraan oo dabagal ku sameeyaan ciddii ku xadgudubtana noo soo gudbiyaan aad iyo aad baan u mahadsantihiin